بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan aad iyo aad u salaameynaa guddida gurmad ee runtii abaaraha isu kaashatay jazakumullah khayran. guud ahaan haddii warbixin yaroo kooban la disiiyo waxaanu caawa xidhi doonaa ama aan idiin soo gudbin doonaa xisaab xidhkii qaybtii hore ama fayskii koowaad, iyadoo runtii xisaabtaasi halkii ay ku baxday iyo sidii ay u baxday walaalkan cabdiraxmaan iyadoo faahfaahsan loo sheegi doono. guud ahaan waxa aanu bixinay raashin dhan ama inta qoys ay yihiin waxa weeye 682 qoys. biyuhu waa 41 booyadood oo dhammaan aan gaadhsiinay deegaanadii ay reerku degayeen ama bahweynta arab ay degaysay oo dhan intii xadka ka hooseysay. runtii waxa aynu wada qabanay oo aan nagu soo hagaajisteen in aynu gaadhsiino dhammaan ciddii u baahnayd ee baahidu haysay xagga biyaha iyo xagga cuntada. waxaa insha allahu haddii ilaahay raalli ka noqdo aynu bilaabi doonaa faysaskii dambe ama kii dambe, iyadoo intii aanu kaa ku mashquulsanayn ay kharash badan u soo dhacay runtii, oo haddii markii hore aanu helayno kharashkaasi aanu mar wada geyn lahayn, laakiin ay noo saamixi weyday markii hore kharash koo koobnaa, markii dambena kharashkii oo soo kordhay ama soo siyaadiyay. haddaba warkoo faahfaahsan waxaan kusoo dhaweynayaa walaalka cabdiraxmaan oo taali oo qaybta kaasheerka ama xisaabta iyo xisaab xidhka iyo arrintaa aada ugu mashquulsanaa noona qaabilsanaa qaybtaasi akoonka. isaga ayaan kusoo dhaweynayaa si uu warkoo faahfaahsan noo yidhaahdo. falyatafadal mashkuuran maajuur. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. marka hore ilaahay baan mahadinaynaa. mar labaad walaalahayga ku jira gruubka ee warbixinta ayaan ku salaamaya salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. runtii marka hore waxaan kale aada ugu mahadnaqayaa arrintaa abaaraha sida degdega ee ay uga soo jawaabeen dadweynihii muxuu ahaayey xaafadda ee deganaa qurbaha. runtii muddo yaroo kooban oo ilaa aan ku qiyaasi karo inay tahay 2 wiig iyo badh oo bisha 17keygii bishii labaad ayaan bilownay. si yaroo kadisaan aan ku bilownay muddadaa yaree kooban iyo sidii degdeg ahayd ee lacagtuna ay isku gaadhay ayaa arrin cajiiba noqotay. oo waxaan islahayn wax yaroo kooban bay noqonaysaa markaba ula carara, laakiin dabada ayay ka ballaaratay. waana wax ilaahay lagu mahadiyo. intii ka geysatayna ilaahay ajar iyo xasanaad ka siiyo. xagga xisaabta haddaan usoo noqdo, totalka guud ayna soo galay horta waa 42,776. totalka markaa waanu kala qaybino wixii saad taaj ku soo dhacayna gaar baan u qornay, wixii xawaaladahan ka soo qaadi jirnayna gaar baan u qornay. totalka saadka ee nambaradan ugu soo dhacay anaga iyo sheekh mubaarak iyo aniga nambarkayga saadku wuxuu ahaa 23,899 dollar. xawaaladaha totalkan ka soo qaadnay waa 18,877. marka labadu la isku geeyo waxay isku noqonayaan 42,767. lacagtaasi markii may soo wada dhicin oo kolba maalin baa soo dhacaysay. runtii anigu waxaan jeclayn wuxuu inta mar la iswada gaarsiiyo mar la wada qaado, laakiin waxa way taas way suurtagal weyday oo dadkii muxsiniinta lacagta bixinaya baa naga dalbaday in degdeg lacagtii loo gaarsiiyo wixii nagu soo dhacay. marka goorta lacagtaanu haynay waan is qiyaasnay ilaa 12,000 bay markaan bilownay barnaamijkii muxuu ahaayey raashinka iyo biyaha. habkay u kala baxeen kharashaad ahaan suu walaalkeen iyo sheekh mubaarak sheegay 40 booyadood 41 booyadood baan dirnay oo lacagta ku baxday tahay 5,120. raashin waxaa ku baxay 13,730. rasiidhadii waa kuwan aan ka soo qaadnay ciir. ciddii u baahan waa loo soo bandhigi karaa. gaadiidkaas wuxuu kala baxayay xamuulkii gawadhida ee raashinka qaadayay iyo kii muxuu ahaayey aanu kaxaysanay maalintan 2 maalmood aan kaxaynay $1,200 intaasna ku baxday. saxaafadda oo ay ku jirto barnaamijka home cable TV oo insha Allah isagana la soo deyn doono isna waxa ku baxay $50.
boorar iyo sticker waxa ku baxay $140 saad la socotaan marka barnaamij noocan la gelayo fartal qaadaro dadku kharash baa jira haday noqoto askar haday noqoto xamaal haday noqoto hawlaha lagu kala waday marka waxaan iyadana ku qiyaas shaqaalaha gaadiidka marka aan ku qiyaasnay 1300 waxay noqotay 1300 marka kharash ka baxay marka la isku geeyo waxa isku noqonaysaa 22599 haddii laga jaro totalkana soo galiya kharashka waxa maanta akoonkiina ugu jira waa $20177 kolley iyadoo intan xisaab xidhka oo koobanna whatsappkan idin soo dhigaynaa iminka si qof kastaba halkaa iyadoo qoraal kala socdo rasiidhada xawaaladaha aan soo qaadayna waa kuwan waad garan kartaa muxuu ahaayey maalin kasta yani intaas loo soo ururin lahaa oo maalin kasta xawaalada yani 6 xawaaladood ama 7 xawaaladood baan soo mari jirnay anaga Sheekh Mubarak oo waqtiga badankan gelinka horeba xagga ka shaqayn jirnay xisaab xidhka iyo liiska iyo waxa soo dhan gudigaan u soo dirnay cidii u baahan wax cadayna ama madmadow kaga jiro oo nala soo xiriiri kartaa 20 kan kun ay noo yaalo iyo 170 kan wali baahida way taalaan waxaan jeclaan lahaa maadaama gurma degdeg yahay waxba yaan la dhigina in adana raashin baahida ugu badan ka wada taagno raashin laga dabageeyo saasaan kaga baxayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ilaahay subxaanahu wa tacaala waa mahad celinayaa waxa kale oo mahad celinayaa guddiga qurbaha ee hawshan bilowday ama walaalaha qurbaha dhamaantood oo si aad iyo aad u mug leh hawshan uga qayb qaatay alloo kala badsado aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waxaan ku tilmaamo qiimaha guddidaas ay nala leedahay iyo hawshay gashay qarada ay leedahay midna ma jiro waxaan ku qiimeyn karaa ma jiro waxaan oran karaa waa fac inaga dhinaa waa fikir aynu u baahnayn insano kale aanu fikirno dadka kama farayarin kama lacag yarin laakiin waxaan la'ayn wax isku keen xidha iskeen aaminsiiya barnaamij noocan oo kale ah inoo horseeda waxaan leeyahay talaabo ayaa maanta aad u horseedeen reerka aan hore u jirin aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin waxa inta idin dheer marka laga tago arintaas waxay faa'iideysay oo is-aaminaada iyo isku xidhka reerka iyo kaalinta ku jirtaan ay muujisay marka laga tago waxa inoo dheeraada in ilaahay subxaanahu wa tacaala idinka ajri siinayo waxa aad qabateen walaalihiin calooshooda aad ku rideen ama garanaysaa aad ku gacan qabateen arrintaas waa arrin mug iyo miisaan leh aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin walaal aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin markaan in yar ku daro say wax u qabsoomeen waxaan odhan karnaa waxay wax u qabsoomeen sidii ugu macquulsanayd waxa ay hawshii noogu fushay sidii ugu dhibta yarayd deero kuma hirdiin dhibaata kamay dhicin dadku qaabilaada ay hayeen iyo say ugu faraxsanaayeen waxa soo gaarsiiseen wax la qiimeyn karayo la qiyaasaya ma nin waliba uu yahay markaan nidhaa rabaa wax ku siinaya rabaa wax ku taraya jeebkiisa gacanta geliyay kii inta yar hayay kii inta weyn hayayba uu isa soo horay markaan nidhaa aad iyo aad bay dadku yaabeen si fiican way gudoonteen waana idinku mahad celinayeen waana idin soo ducaynayeen sida ku aragteen sawirradii iyo fiidiyihii badnaa ayaan idin soo gelinay iyo kuwa arki doontaan insha Allah tacaala hawshaasna waxay u dhacday sidii ugu wanaagsaneed maana arag hawl ka dhibaato yareed oo bimacna hadana ka dhamaystirnayd maana arag waxa aan kelmadda gabagabada leeyahay wixii inoo haray insha Allah tacaala ee wax qabada ama waxa inoo yaalaha noqoto ama waxaynu soo wadnaha noqotay waxaynu isla eegaynaa oo aanu kala fikirnahay inaad ka soo tala bixisaan annaguna wixii aan raayaan idinku kordhino waayo waqtigii loogu baahi badnaa baa la joogaa waxba lama sii hayn karo waliba sidaa uu Sheekh Malik sheegayay waxaanu intii magaalo ka sokeysay xuduuda oo ahayd 18 tuulo ayaanu u qaybinay raashinkan deegaan laakiin intii ka sareysay oo inta leeg oo garan kartaan tuulayaasha ku yaala wada garanaysaa dadkoodii waxba maanaan gaarsiinin way noo harsan yihiin fani ahaan qaabkii wax loo gaarsiin lahaa waa qaab fikirkeeda aynu wada leenahay ka soo taliya laakiin wuxuuna haboon inaanay nagu dhaafin mowsimkeeda iyo waqtigeeda aanay dhaafin oo haddii waqtigeeda dhaafto waxa weeye wixii loo baahnaa waqtigiisa hadduu ka tago faa'iido inoo yeelan maayo taana insha Allah tacaala diyaar baan idin leenahay wixii fikirka ka soo bixinaysaan
hawshuna xisaabtuna la sheegay ku xidhan tahay walaalayaal waa idin soo ducaynaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala halka ka soo saarteen wax khayr qaba ilaahay subxaanahu wa tacaala ha idinku bedelo ilaahay subxaanahu wa tacaala ha idin barakeeyo awlaada allah idin barakeeyo ubadka allah idin barakeeyo arsaaqda allah idin barakeeyo wixii aad kor u qaadaan wanaagsan ba ilaahay subxaanahu wa tacaala naajix ha idinka dhigo saasaan ilaahay subxaanahu wa tacaala aan weydiisanaynaa aad iyo aad baa u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu